ودول la yaab leh dalka Mareykanka ayaa dawladda Lubnaan waxa uu diray dalab la yaab leh si ay dib ugu soo celiso bombka GBU 39B small diameter bomb SDB oo ah bombooyinka gacanka gaaban taasoo qarx weyday kadib markii lagu duqeeyay magaalada Beirut ee caasimadda isla dalka Lubnaan. Waana arintani oo dad badan la yaabeen ay muujinaysaa heerka uu gaarsiisan yahay kibirka dalkaasi Mareykanka isagoo ku doodaya in aanu doonaynin in hubkani uu gacanta u galo dalalka ay isaga xafiiltamaan sida Shiinaha, Ruushka iyo Iran. dalabkan ka yimid dhinaca Mareykanka ayaa la soo diray saacado un kadib markii bombadan lagu arkay mid ka tirsan degmooyinka magaalada Beirut iyadoo ay Washington ka cabsanayso in gantaalkan ay gacanta ku dhigaan kadibna ay qalliin ku sameeyaan dalalkaasi si ay laftoodu u soo saaraan una turxaan bixiyaan sarreemaha tiknoolajiyadeed ee uu sito sida hanaanka hagitaanka gantaalkan ee heerka sare ah handasada elektarooniga ah ee uu xambaarsan yahay iyo agabka uu ka samaysan yahay oo dabcan daraasadeynta iyo horumarintiisa oo qura ay ku baxday balaayiin dollar isla markaana kamid ah tiknoolajiyadaha gaashaandhigga ee Mareykanku uu dunida ku haysto waxa loo yaqaano Global Technological Dominance. gantaalkan ay Israel ku garaacday degmada Harat Hareik ee ka tirsan magaalada Beirut halkaas ay ku xoogan yihiin kooxda Hezbollah waana la sheegay in bartilmaameedku ahaa Waafiq Safa oo ah madaxa kooxdaasi ugu qaybsan isku dubaridka isla markaana ah khadka muhiimka ah ee isku xira hogaanka kooxdaasi iyo dalka Iran. ninkan ayaana dabcan khaarijinta ka badbaaday maadaama aanu gantaalkani qarxin balse waxa soo baxday sheekadan yaab kale. diblomaasiyiin Mareykan ah ayaana toos ula xiriiray ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee Lubnaan Najib Mikati saacado un yar kadib markii duqeyntani dhacday iyagoo dalbaday in lagu soo wareejiyo gantaalkan aan qarxin iyagoo waliba ka digaya in gantaalkan galaangal loo yeesho taasoo ay ku tilmaameen mid halis gelinaysa danaha ammaankooda qaran. haddaba in waxoogaa eegno sababta uu Mareykanku gantaalkan uga daba ordayo. GBU 39B small diameter bomb waxa uu kamid yahay gantaalaha yaryar ee muhiimadda istiraatiiji leh ee uu Mareykanku haysto waana qiimo ahaan lagu sheegaa in uu u dhaxeeyo 70,000 ilaa 90,000 oo dollar halkii xabo taasoo hadba ku xiran baxaaliga iyo astaamaha gaarka ah ee loo naqshadeeyo waana sida muuqata gantaal nisbi ahaan ka raqiisan bambaanooyinka waaweyn ee qaaliga ah balse qiimihiisu waxa uu dhacayaa balaayiinka dollar ee ku baxday horumarinta tiknoolajiyadiisa oo inta badan aanay jirin wax u dhigma marka ay timaado masaafada saxnaanta raadaarka uu ka dhunto yaraantiisa isagoo aan luminaynin bandhigiisa guud inuu leeyahay awood loogu duqeyn karo jawi kasta xitaa haddii uu xun yahay waxa loo yaqaano all weather strike capability. qofkiisu waa 250 rudal ama 113 kilogram waana maadaama uu yar yahay uu awood u leeyahay in ilaa 4 xabo lagu xiro diyaaradaha F-15E, F-35 iyo F-16 taasoo markeedan awood u siinaysa inay ku duqeeyaan bartilmaameedyo qaali ah iyaga oo aan laba cabaysan. gantaalkan ayaa baalasha u laaban sii daysta isla marka la rido taasoo u saamaxaysa inuu mushaaxo ilaa 74 kilomitir oo u dhiganta 40 nautical mile waanu sida darteed dawladda ka caawinaya inay gantaalkan u dirto meelaha aanay u dhawaan karin ee aadka loogu cortamayo waxa loo yaqaano stand of warfare isagoo isku leh hagitaanada loo yaqaano GPS iyo INS oo ka saxaya booska kaynaanta xogta hagitaan waana tayooyinka gaarka ah ee uu gantaalkani leeyahay kamid ah inuu yahay waxa loo yaqaano sub 5 meter accuracy oo ah in haddii ugu fogaado uu 5 mitir oo qura usoo jirsanayo halkii lagu shiishay isla markaana uu u gegsan karo agabyada ay wax ku tashwiishaan dalalka Ruushka, Iran iyo Shiinaha oo aad u adeegsada dagaal danabeedka ay mararka qaarkood gantaalka uga xiraan ishaarooyinka dayax-gacmeedka waana sababta ay Israel gantaalkan ugu adeegsato duqeymaha magaalooyinka gaar ahaan Gaza, koonfurta Lubnaan iyo Syria oo iyadu aanay marna u kala aaba yeelin dawlad iyo dad misna gantaalkan wuxuu awood u leeyahay inuu duqeeyo goobta cayiman ee lagu shiishay oo qura oo Israel gantaalkan GBU 39B adeegsanaysay tan iyo 2010 gaar ahaan waxay si weyn ugu adeegsatay dagaalka Gaza 2024 iyo sidoo kale duqeymo badan oo ay ka geysatay talisyada kooxda Hezbollah isagoo leh muuqaallo ay kamid yihiin waxyaabo lid ku ah tashwiishka sida anti-jamming modules oo kale oo uu gantaalkani leeyahay algorithm sir qaran ah oo aan dunida loo sheegin ama xitaa laga qariyo dalalka Mareykanka la olga oo toos ugu xira shabakadka military ee kala duwan ee dalkaasi Mareykanka. dhibka jiraasi waxa uu yahay tiyo uu Mareykanku dawladda Lubnaan ka codsaday in gantaalka dib loogu soo gacan geliyo misna dawladda Lubnaan
waxba uma yeerin karto xisbullah oo ah dowlad ku dhex taal dal kale sidoo kalena daw maba ahaa in gantaalka dib loogu soo celiyo dalka Mareykanka oo doodiisu ay tahay ii soo celi gantaalkii aan kugu dhiftay si aan la iga koobiyeynin ama minguurin sidaa darteed waxay u badan tahay in durba xogaa gantaalkan oo xitaa lagu arki karo baraha bulshadu uu u gudbay dalalka ay Mareykanka xafiil tabaan sida Iran iyo qaar kale. Maxamed Xaaji, Hadalsame TV.